بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله السلام عليكم. إن شاء الله تعالى أنا ما هي خبير حق وحبر الشهداء خبير كوه لا طليان وحبر الشهداء ما هي، لكن إن شاء الله تعالى وحن عن سكودية إن شاء الله تعالى عن نكسي وربحين كسافسن وحقبتك أرض الصومالية وحبرشة especially مقالة لندن قارهان مقالة لندن بالله. أنا كعضو دارنا هي مدام dadkii loogu talagalay waxbarashada inay wax ka bixiyaan intoodii badna maanta maqan yihiin, laakiin insha Allah waxaan ku dadaali doonaa inaan bal wixii karaankay aan ka gaaro intaan ka gaaro aan wax ka iraahdo. haddii warbixin guud aan ka siiyo systemka waxbarashada Ingiriiska, waxbarashadu sideedaba waa saddex qaybood boo qaybshaan. qayb la yiraahdo waa khasab ama compulsory sector oo khasab ay tahay markaa ardada dhiganaysa inay khasab ay ku tahay inay ka qayb galaan iskuulada, taas oo ka bilaabanaysa primary-ga ilaa secondary-ga waa khasab year 1 ama reception ama nursery day ilaa ardaygu uu ka gaaro year 11 oo markaa GCSE-ga uu ka baxo. waxaa khasab ah ardaygu inuu ka qayb galo waxbarashada intaa. maxaa imaanaya hadduu ardayga ka qayb gali waayo intaa? waxaa imaanaya cuqubaad baa ka imaanaya markaa, ama penalties baa ka imaanaya oo xagga waalidka ah, especially in familada haysta carruurta daawadu intaa u dhaxaysa haddii ay waxbarashada ka qayb gali waayaan markaa ganaax dhaqaale la saaro. meelaha qaarkoodna ay keentaba in waalidka uu markaa xabsi uu ku mutaysto. qaybta labaad oo aan khasabka ahayn waa post compulsory sector ama FE further education sector, taas oo dhacda wixii year 11 ka dambeeya oo college-ka caadiga dadku year 12 ama wixii college ah, taa khasab ma aha. bariwar waxay ahaan jirtay da'da waxay ka bilaaban jirtay ardayga markuu 16 gaaro, laakiin hadda waa la soo yareeyay da'da waxaana laga dhigay ilaa 14 jir. qofka 14 hadduu gaaro wuu bilaabi karaa waxaa la yiraahdo FE sector, toos buu u geli karaa. qaybta saddexaad waa higher education sector oo ah markaa jaamacadda. marka waxaan rajaynayaa inaan markaa warbixin aan idinka siiyo qaybtan compulsory sector-ka la yiraahdo, qaybta ay khasab ay tahay in markaa ay ardadu markaa ay ka qayb qaadato. waxaan doonayaa insha Allah tacaala inaan halkan aan idinka soo jeediyo laba warbixinood ay sameeyeen laba baarow oo ka mid ah baarowyada London. baarowga Lambeth oo South East London ah iyo baarowga Ealing, labaduba warbixintu isku sibay u tilmaameen, isku sibayna wax uga warbixiyeen. waxay markaa ay diiradda saarayeen waxqabadka ardada Soomaalida. saasay noqonaysaa. okay, warbixinta marka ay soo jeediyeen baarowyada Lambeth haddaan ku hormaro, waxay tilmaameen ardada Soomaalida ee dhigata key stage 1 oo ah year 1 ilaa key stage 4 oo ah GCSE level
macnaha sanad dugsiyeedka waxqabadka waxbarashada ama natiijooyinka ay markaas ardada Soomaalida ay heleen inay tahay kuwa hooseeya oo ka hooseeya qowmiyadaha intooda kale مثلا average ardada key stage 2 ilaa key stage 3 key stage 2 waxaan ka soo qaadanaynaa statiska markuu year 6 ka baxo ilaa key stage 3 waxay muujiyeen in maadada ama maadooyinka sayniska oo kale ay 39% boqolkiiba heleen xisaabta oo kale 50% ay heleen Englishkana 41% ay heleen daa macnaheedu ma aha arday walba 39 buu helay average marka la sameeyo ardayga ugu hooseeya hadduu helay midalan boqolkiiba 20 xisaabta ardayga ugu koreeyana uu helay boqolkiiba 90 waa la isku celcelinayaa waa la isku darahayaa ka ugu hooseeya iyo ka ugu sareeya ya markaas la isku celcelinayaa average marka waxay keenaysaa 39% inay heleen sayniski 39 boqolkiiba Englishkii inay heleen 41% mathskina inay marka 50 heleen marka laanda qowmiyadaha kale ee dhigta ama ardada Soomaalida aan ahayn sida ardada madowga kale sida ardada Asiyaanka sida ardada Englishka ama wadankan u dhashay waxa marka cad inay Soomaalidu ay yihiin dadka ugu hooseeya marka halka marka waxay muujinaysaa ardada Soomaalidu inay yihiin ardada ugu hooseeya taa waa warbixinta laambe warbixinta Ealing oo ah West London ayaduna sidoo kale sheegaysaa same number bay sheegaysaa marka Ealing oo kale waxay sheegaysaa sidoo kale sheegaysaa oo wax leedahay Ealing waxa dhigata dugsiyada ama dugsiyada hoose ama dugsiyada sare inta marka la isku daro ilaa 4000 oo arday oo Soomaali ah Ealing Broadway dhigata ama Ealing Barrow dhigata warbixintan Ealing kaliya ma aha waxa laga keenay ama ma aha Lambeth ma aha laakiin London 32 Barrow ka kooban tahay 28 Barrow oo 32 ka midka ah warbixinta waa soo gudbiya isku darka ardada Soomaalida dhigata magaalada London ama 32 Barrow 29,000 oo arday weeye 29ka midalan hadda tan ma aha 2010 waa 2009 warbixintan waa sanadkii hore weeye ardada marka Soomaalida 29,000 4,000 oo kamid ah waxay dhigataan Ealing marka percentage aan loo xisaabo ama boqolay loo xisaabo Ealing ardada dhigata Soomaalidu 10% bay samaysaa waana ardada ugu badan oo hal qowmiyad ka soo jeeda oo Ealing dhigata waa Soomaalida boqolkiiba 10% waxay isla qireen inay Soomaalidu u hooseyso all key stage from key stage 1 all the way in key stage 4 laga bilaabo year 1 ilaa year 11 ardada Soomaalida ayagu hoose all subjects maada walba science maths English waxa kale oo la isla qiray in gabdhuhu ay ka wanaagsan yihiin wiilasha gabdhuhu inay ka waxbarasho fiican yihiin wiilasha all key stages from key stage 1 to key stage 4 gabdhaha ayaa wanaagsan Soomaalida ah ayaga wiilasha ka wanaagsan iyaga ayaa ka wanaagsan wiilasha sababta ay taasi ku dhacday hal qodob bay ka soo qaadeen waxay dhaheen ma hayno hadda qaab kale oo aan ku tilmaamno laakiin waa biological reasons macnaha abuurista Ilaahay u abuuray gabdhuhu inay ka degan yihiin xagga wiilasha oo markay wax sameynayaan ay gabdhuhu aad ugu fiirsadaan waxa ay sameynayaan ka baaraan degaan gabdhuhu inay wiilasha ka ciyaar yar yihiin intaas oo dhan baa waxay keenaysaa gabdhuhu marka inay wiilasha ay kaga fiicnaadaan xagga waxbarashada warbixintaasi waa ilaa from primary to secondary ma aha jaamacadda heer jaamacadeed warbixintaasi kuma fadhido ilaa hadda wali ma ogin haddaba waanu aragnaa in wiilasha Soomaalidu ama ardada Soomaalidu dhammaan ay ugu hooseeyaan qowmiyadaha kale sababaha jira marka maxay taas u dhacaysaa maxaa keenay inay ardada Soomaalidu marka ugu hoos marto ardada inteeda kale isku macallin baa wax u dhiga iskuul bay aadaan
all subjects English maths isku ay u qaataan maxaa keenay ardada Soomaalida inay ardada ka hooseyso qolankii uu cilmi baarista sameeyay oo dabcan wasaaradda waxbarashada iyo hay'ado kale waxbarashada qaabilsan waxay sheegeen dhowr qodob bay ka sheegeen oo waxay yiraahdeen in ardada Soomaalidu ay u hoos marto ama waxbarashada sidii la rabay aysan u sameyn waxa keenaya dhowr qodob baa keenaya haddaan midalan wax ka sheega hadda qodobka ugu horeeya oo kale oo soo qaato tusaale u soo qaato ardadaas sababta ay hoos ugu dhaceen number 1 waxa la yiri ardada Soomaalidu boqolkiiba 87 waxay entitlement u leeyihiin ama waxay apply gareeyaan waxa la yiraahdo free school meal iskuulka raashinka laga cuno oo midalan ardaygu markuu subaxii galo oo galabka ka soo baxo bareegyada la qaato cunta la cunaa ardada Soomaalida boqolkiiba 87 cuntadaas free bay u tahay taasi hal factor bay noqon kartaa oo keeni karta in markaa ardaygu hoos u dhaco maxaa taa ku duugan macnaheedu ummado kale oo waxa jira free school meal ah oo laakiin uusan qodobkaasi saameyn sida Shiinayska kale ardada China arday badan oo saas oo kale baa jira laakiin waa ardada ugu wanaagsan all UK ayaga number 1 ah xag waxbarashada marka maxaa koos gareynaya in anagu free school mealka haddaan Soomaali aan nahay uu dib noo keeno oo wax baran weyno halka ardada kale oo nala midka sida ardada China free school meal inta ah ay ugu fiican yihiin xataa kuwa aan free school meal ay ka fiican yihiin maxaa koos gareeyay dabcan free school mealka waxa la qarinayaa waa faqri ba halka la qarinayaa ardaygan free schoolka mealka inuu ka dhaqaalo hooseeyo ama reerkoodu ka dhaqaalo leeyato ardaygan free schoolka mealka ahayn ayaa keenaysa taas baa la qarinayaa macnaheedu ay tahay kan school free mealka ma heli karo waxyaabo badan ama fursad badan uu ka kala heli karo dalan in loo ballan qaado waxyaabo badan dalan in waxyaabo badan loo gado oo la yiraahdo haddaad waxbarashada inta aad keento haddaad A keento haddaad B keento minimum waxaas baan ku gadayaa halka baan ku geynayaa taas bay ayagu kulay ujeedada ugu dan leeyihiin free school meal ku wata laakiin annaga Soomaali ahaan ama waalid ahaan waxa la kaga rabaa ama la ka rabaa in halka aan qodob u keeno sababtoo aan anagu ugu hooseyno oo dadka kale maarta ay taas u saameyn weydaan kaliya noo saameyso qodobka labaad waxay yiraahdeen mobility wax la yiraahdo jira oo ay keeneen taasna waa qodob kale oo markaa keentay ardaygu inuu hoos u dhaco mobility-gu waa ardaygan mobile oo kale weeye waa gurguuridda sanadkan iskuulku wuxuu ka bilaabay Camden waxa uu degan yahay ama reerkaas markaa degan yahay guri temporary ah iskuulkii markuu bil dhigtay yaa guri temporary kala hadana waxa laga siiyay infield reerka ardaygii waa guuraya kama soo aadi karo infield schoolkii halka ma imaan karo marka waxa keentay ardaygii markuu infield tago inuu iskuulkii waiting list galo halka oo 2 bilood ama 3 bilood ama sanad dugsiyeedka inta ka dhiman uusan helin ba school taa marka waxay keenaysaa ardaygaasi inuu under achievement uu sameeyo oo sidii la rabay markaasi uusan waxba u sameyn midda kale oo ayaguna ay sheegeen oo ay dhaheen sabab bay tahay inuu ardaygu sidii la rabay wax u sameyn waayo waa xagga luqadda oo ah English fluency sidii la rabay ma aha oo sidaan ognahay arday badan oo ardayda Soomaalida sidaan u badan yihiin markay ka yimaadaan dibadda ama Soomaaliya ama Afrika laga keeno waxa laga yaabaa arday aan school dhigan oo primary aan ka qayb galin oo year 1 year 2 year 3 aan wali waxbarasho soo arag halka marka la keeno in la friisiyo markaas age-kiisa galaaska ay fadhiyaan oo مثلا la yiraahdo year 8 ama year 9 buu ka bilaabay asagoo waligiiba dhiganba ardaygaas marka maxaa laga filanayaa muxuu sameeynayaa qof 8 sano ama 9 sano school dhiganayay markaad adoon waliga school dhiman la timaado maxaa keeni karaa waxba ma keeni karaysid marka taana waa qodob kale weeye laakiin waalidiinta ama organization kale oo waxa jira ardada Soomaalida ama waxbarashada u ololeeyo oo yiraahdo ma arintu sidaa kaliya ma aha waxa jira waxyaabo kale oo haduu Ilaahay ku ilmaayo keentay inaan sidii la rabay aan wax u sameyn weyno
لكن أي runtii isku meel ku imaanayaan مثلا waxay yiraahdeen luqadda Ingiriiska oo kale waa ku hooseynaa si la rabay maaha qoladan Soomaalidu waxay sheegeen role model ardada Soomaalidu ku dayato oo Soomaali ah maba jiraba UK ama waddankan aan joogno qof role model oo wanaagsan oo waxbarashada heer fiican ka gaaray oo ardada Soomaalidu markaa ku dayan karto oo ku dhiiran karto oo Soomaali ah maba jiro taa marka ayadana waa qodob hoos u dhac ah oo keenay in ardada sidii la rabay ay markaa ama qof wanaagsan oo ku dadaan xagga waxbarashada ah ama qof caan ah oo waxqabadkiisa waxbarasho in la waayo way keeni kartaa qodobka kale oo yiraahdaan waxay dhaheen aqoon la'aan qaabka waxbarashada systemka Ingiriiska taa waa run oo way keentay in systemka waxbarashada Ingiriisku aan waalidiinta Soomaalidu aysan kulligood aysan caam ku ahayn ama aysan la socon ay ku baraarugsanayn markaana ay keento in markaa dhib badan halka ka yimaado waxa kale oo jira waalidiinta oo amaba dareensanaynba qaabka saddex geeska ah qaabka the triangle relationship between school teach and parent and children ma oga qaabka saddex geeska ardada ama waalidka Soomaalidu qaabka kuma baraarugsana haddii marka waalidka iyo macalinka ardayga wax u dhigahaya iyo ardaygu aysan xiriir sax lahayn haddii aan la iska kaashan waxa la sameeyay ardayga wuxuu bartay meeshuu joogo waxa u dhiman wuxuu hiigsanayo marka waxay keenaysaa in sidii la rabay ardaygu wax u sameyn waayo haddii adan xiriirba waalidku uusan la lahayn iskuulka ama macalinka ardayga wax u dhigahaya hadaadan u imaan adiga waalid ahaan adan weydiin ardayga wuxuu ku fiican yahay maadada ku fiican yahay maadada ku liita maxaa la qaban karaa macallin ahaan maxaa la qaban kartaa taa hadaan la keenin ardayga waxa ma sameyn karo ardayga haddii loo diro iskuulka uu ka soo noqdo waxa ma keenayo midda kale waalidiinta ayaga mas'uulka ah inay qodobka daba galaan iskuulka mas'uulka kama aha haddii aan arki jirnay systemkeennii hore ee Soomaaliya in iskuulku asagu waxa soo mas'uulka yahay Soomaaliya markaan joognay ama dadkii hore wax ku soo bartay Soomaaliya inta badan mas'uuliyadda noocaas waxa qaban jiray iskuulka qaban jiray waalidku waxa la arki jiray ardaygu markuu dabdar yar sameeyo ama iskuulka laga eriyo ama wax yar noocaas laakiin inta kale macalinka iyo systemka markaa jiray ee waxbarashada ayaa mas'uulka ah laakiin halkaan waa ka duwanta ardaygu iskuulka u dirtay macalinkaana waxba u dhigayaa macalinka markaa asaga mas'uulka ma aha ardaygu in sidii la rabay wax u barto waalidka looga baahan yahay waalidiinta qaar baa waxay u qabaan ardayga mesela sidoo sanadkan year 7 dhiganayay oo sanadka dambe year 8 aado inay bas tahay oo ardaygaas wax ka khaldan haba yaraatay ayna jirin arinta waa khalad sidaad ogtihiinba ama hadii na ogeynba dadka qaarkii wadankan caruurta lama ridaba imtixaan waxa la yiraahdo waa la qaadaa laakiin caruurta lama rido ilaa GCSE waa socdaan ilaa yeertan waa socdaan GCSE-ga waa lagu kala haraa ardayga waa dhacaa laakiin markuu dhaco laftirkeedu college buu sii aadaa oo ku sii lixjiito laakiin year 7 buu ka baxay year 8 buu aaday dads waalidku wuxuu leeyahay waa baasay ardayga sanadkan year 7 buu ahaa year 8 buu tagay sanadkan year 9 buu tagay waa okay arintu waa fiican tahay arintu waa khalad sida maaha ayadoo year 7 uu ka tagay year 8 uu aaday ayaa wax badan ka khaldan yahay marka waalidka waxa looga baahan yahay arinta inuu ku baraarugsanaado oo uu markaa ka shaqeeyo sida markaa uu ardayga ama ilmaha uu asagu markaa mas'uulka ka yahay waalidku u yahay inuu markaa uu meeshu marayo mar walba uu ka warqabo waalidka ayaa arinta looga baahan yahay ardada marka dhibka ugu badan dhaco oo dhibka ugu badan uu ka dhaco waxay yihiin ardada markaas dhawaan wadanka timid ardada dhawaan wadanka timid oo Soomaaliya ka timid ama Afrika ka timid oo meeshan year 1 year 2 year 5 aan ku dhigan dhibka ugu badan ardadaas ayuu ku dhacaa ayadoo ay keento xagga luqadda ayadoo ay keenaysa xagga culture-ka xitaa cultural aspects way keentaa waxbarashada ardaygu inuu sidii la rabay uusan wax u sameyn oo mesela ardayga Soomaaliya ka yimid halka markuu yimaado straight away from Soomaaliya ilaa halka kan wuxuu yimid luqad uusan waliga arkin ama uusan ku hadlin buu yimid dad dhaqan iyo diin iyo af iyo caado haba yaraatee wax aan iska shabaxaan aysan jirin buu u yimid
halkaa laftirkoodu shock baa ku dhacaya ardayga luqadii ma yaqaan maalinka ugu horeeya ardayga year 8 la fariisiyo fara taagtaag waa inuu faraha ka hadlo ama year 9 la fariisiyo wax kasta ay noqoto faruhu ka hadlaya marka arrintaasi waxa loo baahan yahay in lagu baraarugsanaado haddii aan u soo noqdo مثلا warbixinta eelin oo kale waxay yiraahdeen key stage 1 key stage 2 ardayda Soomaalida 76% bay sameeyeen oo xagga maaragta reading and writing ka haddana waxay sameeyeen 80% maths way sameeyeen baa liiri laakiin dhibka wuxuu ka dhacay waa key stage 4 GCSE ga marka laga baxayo way meesha ay aad ugu sii liitaan taasoo مثلا ay aad iyo aad uga hooseeyaan ardada inta kale مثلا 39% oo 34% ayay مثلا maths ka keeneen ardada Soomaalida taasoo ah macnaha shocking number runtii aad looga dhaxo wax aad looga argagaxa ah marka arrintaasi waxa loo baahan yahay waalidiintu inay ku baraarugsanadaan baa loo baahan yahay haddii aan wax yar ku noqdo waa ka baxay baan leeyahay qodobadii ahaa maxaa keenay in markaasi ardada Soomaalidu ay sidaas u dhacaan su'aal baa marka halkan aan sameynaya oo ah maxaa ardada China ka timid oo waddankan dhigata oo free school mealka ayaguna free school mealka maxay u fiican yihiin maxay dadka oo dhan uga sareeyaan maxay ardada Soomaalidu iyo ayagu kala duwan yihiin xaqiiqda runtu arrintaasi waalidiinta ku xiranta iskoolka kuma xirna waalidiinta ku xiran tahay statistics marka la sameeyay waxay muujinaysaa in ardada China ay la sarkoodu number badan oo ardada Chinese-ka ay free school meal yihiin laakiin haba yaraatee aysan saameyn ku yeelan waxqabadka ama natiijooyinka imtixaanaadka ay carruurtoodu markaa ay helaan sanadka 2009 waxay yiraahdeen 71% ardada Chinese kuwa free school mealka 71% waxay keeneen 5 good GCSE 5 good GCSE that means 5 oo star bay keeneen halka kuwa non free school mealka oo Chinese-ka ah ayaguna 72% yihiin مثلا ardada free school mealka ama raashinka freega cunta oo Chinese-ka 2009 71% bay ahaayeen iyo isku score gareeyeen halka kuwa reerahoodu ladan yihiin oo markaas ayagu aan free school mealka aan ahayn 1% baa u dhaxaysa halka waxa ka muuqata marka waalidka China ah ama waalidka Chinese-ka ama free school meal ha ahaado oo marka ha noqdo waalid dhaqaalihiisa hooseeyo ama ha noqdo mid hodan ah ardadoodu waxa ay kula duwan tahay inay 1% tahay sida hadda cadadkan 2009 kan statistics ay sameeyeen ugu muujinayo ardadaas marka free school mealka oo Chinese-ka qowmiyadaha kale way ka tageen runtii aad bay uga hormareen oo ayaga iyo qowmiyadaha kale oo مثلا ama Soomaali ha noqdeen ama white British ha noqdeen ama Asian ha noqdeen 32% baa u dhaxeeya gaab ah 32% ayay ka sareeyaan oo ardada China markaas waxa la isku waafaqay inay hogaaminayso ama hogaaminayaan waxbarashada waddankan Ingiriiska from primary to secondary arrinta markii la baaray sababta ay taa u dhacday waalidiinta Chinese-ka waxay ku soo koobeen in markaasi ay waalidiinta Chinese-ku waxay aaminsan yihiin caqiido ah in waxbarashada si dhab ah loo qaato oo ay waajib tahay waa caqiido ahaan ayay u aaminsan yihiin halka anagu aan soonka iyo salaada iyo xajka ay waajib nagu tahay oo sidaas kale u aaminsanahay qofka Chinese-ka waxbarashada sidaas oo kale u aaminsan yahay qofkii markaa laga waayo oo sidaa u aaminsanayn markaas wuxuu lumiyay astaantii koobaad Chinese ama China qofku inuu yahay muujinaysay uu lumiyay total si dhab ah waxbarashada ma qaadan qofkaasi marka مثلا haddaad soomin ama salaadin markaas islaamnimada sheeganaysa maxay tahay islaamnimada markaasi de kulay
siday tahay waa dareemi ka dhacdaada waajibaadkii islaam oo asaasiga baa qaar ka mid ah jabisay ayagu marka waxbarashada hadduu sidaa u jabiyo qofkaas janays ma wax bay ku leeyihiin waa caqiida marka taas baa waxay keentay in waalidiin badan ay si dhab ah markaas ay ugu sheegaan xag waxbarashada sidoo kale waxay sheegeen waalidiintu pressure bay carruurta ku saaraan ayagoo taa aaminsan bay haddana si taas si dhab ah loogu qabto ay pressure saareen si taas u hirgasho waxay kaloo la ogaaday oo markaasi ardada Chinese-ka guushaas keentay inay helaan ardada Chinese-ka waxaa la ogaaday in supplementary schools ay markaa ka qayb galaan ama waxyaabahan la yiraahdo tuition ama after schools inay ka qayb galaan taas oo aan ahayn midka lagu dhex sameeyo iskoolka ardaygu dhiganayo midalan su'aal ahaan u soo qaado iskoolka aad dhigato baa wuxuu yiri after school baan waxaan sameeynaa free schools waxa ran garanaya waa macallimiintii subaxii dhigayay weey marka macallinkii subaxii dhigayay oo mushaarka lagu siinayay hadii marka wax fiican uu qaban waayo ardaygu ku qaban waayo asagoo marka galabkii dhigayay oo free ku dhigayay muxuu qabanayaa waa same marka wax farqi weyn ma ay keenayso laakiin ayagu waxay yiraahdeen supplementary schoolska ardanada aan geyno ma aha kuwa iskooladooda ama iskoolada ay subax dhigtaan ma aha waa mid private ah oo marka waalidku la baxo tusaale ahaan halkan haddaan siiyo gabar asalkeedii ama waalidkeed maarta markaa Malaysian ahayd oo ay soo qaateen waxay haysataa 12 GCSE oo 7 ka mid ah ee star ay tahay saddex ka midana ee caadiya tahay inta kalena ay B tahay oo xataa aan siiba soo galin gabadhaasi marka familkeedu taajir ma waa free school meal way gabadha saa wax yeelaysa reerkoodu waa reer dhaqaalahoodu maarta iska hooseeyo ama maarta benefit ah 12 GCSE 7 ka mid ah ay tahay ee star saddex ka mid ah ay tahay ee caadiya inta kalena marka ama labada hartay markaas ay B tahay waa wax cajiib ah weey runtii gabadhaasi marka la weydiiyay sidaan ku hesheen waxa la yiri gabadhaasi from year 1 ilaa ay natiijadan ay soo gaadho GCSE ay ka baxday waxay ka qayb galaysay supplementary school ama tuition bay marka dhiganaysay marka waa dareemi kartaa marka muhiimka ama maaragta mudnaanta loo baahan yahay ardaygu inaad si gooni ah ula dadaasho oo aadan ku hadlayn waxyaabaha uu iskoolkiisa caadiga uu markaa ka dhiganayo haddaan u soo noqdo marka waxaan aragnay ardayda Soomaalida inay dadka ugu hooseeyaan xag waxbarashada sababaha keenay markaas inay hooseyntaas timaadana waa aragnay sidee looga bixin karaa marka dabcan qof walba waa garan karaa lamana gaaro haddii la yiraahdo annaga Soomaali ahaan waddankanagii waa ka soo qaxnay dhib baan haysta qof walba oo Soomaali haddii la yiraahdo maanta war sidee wax loo hagaajin karaa qof walba oo maaragta aqli leh oo wax garanaya qodobada ugu wanaagsan oo ugu saafisan buu keenaya oo haddii aad akhridana ay run tahay from A to Z in marka haddii qodobada la raaco Soomaaliya hagaagi karto laakiin waligeed waa la sheegay maarta si physical ama si ficil ah uma dhacdo tanna waa sidoo kale waa wax la wada og yahay ardayga in la dadaalo in maarta tuition la geeyo in macallin loo qabto in maarta homeworkiisu ka shaqeeyo laakiin ma samayno inta badan ma samayno okay waalid ahaan marka halkan waxay sameeyeen xoogaa recommendation ay sameeyeen oo loo baahan yahay marka in la raaco wuxuu ku leeyahay carruurtaada la sheekayso oo kala hadal wuxuu soo bartay maanta iskool buu aaday saaka adirtay saacadu maqnaa la sheekayso xiriir hoos la yeelo maxaad maanta soo baratay maxaa kugu adag maxaad jeceshahay inaad barato ama maadooyinka maadada u jeceshahay ku ammaan waxa uu sameeyo ardaygu hadduu wax yar sameeyo hadhihin dhimin baa tahay lazy baa tahay mashaqaystaa tahay sidaan arday hebel si fiican buu sameeyay hadiisaan baa taaha samayn ammaan xitaa hadduusan wax fiican keenin oo wax yar isku dayo la yimaado ku ammaan taa maxay keenaysaa encouragement ardayga siinaysaa inuu dhiirigelin uu ku dhiirrado hadduu ilaahay ku idmaayo inuu wuxuu samaynayo markaa uu saa u barto ayay markaa keenaysaa qodobka kale
oo markaa loo baahan yahay in uu waalidku la yimaado waxay tahay markaa saa ugu dhiirigeliso ardaygii markaa wuxuu keenayaa inuu ku dhiirado waxa uu samaynayo maalan kalsooni daraa jirta waxaad ku dadaashaa inaad xagga kalsoonida ilmahaaga aad ka dhisto waxaa laga yaabaa ardaygu asagoo fahamsan wixii ama ka shaqayn kara cabsi markaas uu cabsanayo ama kalsooni darra haysa inuusan wixii ku dhiiran especially ardada dhexdeeda marka presentationada la samaynayo ardada Soomaalida kuma dhiirato waxaa maaragtaa yar in maaragtaa si voluntary ardayga uu yimaado oo maaragtaa ama meel dad badan markaa joogo intuu soo istaago uu warbixin ka soo jeediyo ama maaragtaa demonstration uu markaa ka sameeyo taana sababtu waxay tahay ardayga markiisii hore ayaa waxaan laga dhisin self confidence ama maaragtaa qofku inuu naftiisa ku kalsoonaado markaad ardayga aad soo dhisto year 1 year 2 year 8 whatever wuxuu keenayaa inuu ardayga wuxuu sameeyo xitaa waxa uu sameeyo khalad haday tahay kalsooni ayuu markaa helayaa uu khaladkiisii ku kalsoonaado hadduusan kalsooni lahayn waxaa ku dhacaya wixii asagoo sax ah oo si sax u keenay oo uu yiri laba lagu dhuftay laba waa afar oo saa u huba yaa hadii la yiraahdo maya waa shan inuu yiraahdo kalsooni darro la adligay marka taa waa in laga taxadaro sida marka ardayga hadduu ilaahay ku imaayo loogu dadaalo qodobka labaad waalid ahaan baan ka hadlayaa waalid ahaan waa inaad og tahay ardaygaagu meesha uu ku liido waa in dhibka aad hesho waxa ardaygaagu uu under achievement u samaynayo waa inaad og tahay taa haddaad hesho dabcan haddii cudur la helo daawadiisa waa la helaa ardaygaaga markaad ogaato meesha uu ku liito maalan xisaabta ku liitaa waad ka caawinaysaa haddaad cudur hesho cudurka haddii la helo cudurkaaga haddii la helo daawadaada waa la helaya haddii dhibkaaga iyo meesha ku liidata heshay la helo si sahal ayaa markaa loo samayn karaa in maaragtaa ardaygaa la caawiyo maalan waxaa jira dhib caam ah oo ardayda oo dhan haysato intaan taa u gudbin ardayga markaa dhibkiisa aad hesho waxaa imaanaya markaa inaad ka caawiso homework-ga ama maalan haddii dhibka uu yahay homework-yadiisa oo kale inuusan celin markaa in aad ka caawiso markaas maadadii ama homework-gii markaas meeshuu dhibka ka jiray waxaa dhici kara ardaygan homework-gan loo soo diray ama coursework-gan loo soo diray inuusan ba fahamsanayn xaqiiqdii ujeedada ka dambaysa ama macallinka waxa uu ka rabo theme-ka ka dambeeya ma fahamsana waxaa markaa loo baahan yahay qof fahamsiiya homework ama assignment ama coursework ba loo soo diray ma fahamsana waxaa laga yaabaa markaa copy and paste inuu sameeyo intuu meel wax ka soo koobiyo markaasi uu markaas dhigo iska dhigo wax asaga sameeyey taasi marka ma anfacayso qofku waxa loo baahan yahay waxa uu baranayo inuu si dhaba u barto ma aha imtixaanka ku baas haddaan dib ugu noqdo ardadan China waxay wax u bartaan adduunka wax ku soo siyaadi adduunka wax cusub ku soo siyaadi oo maaragtaa discovery cusub adduunka keen adigu wax cusub discover garaa iyo wax u bartaan annagu laakiin sida badan imtixaanka ku baas ama shaqo ku hel ama shahaado ku hel inaan u baranaa u dhici kara saas bay u badanta 95% waxa kale oo iyaduna dhibka kala ah oo loo baahan yahay in markaasi ardayga u baahan yahay in laga caawiyo qodobka kale waxa weeye ardayga waxaad samaysaa waxa la yiraahdo provide a tutor macallin u qabo ha ku hadlayn qodobka cabaar baan ku noqday macnaha sababta aan ugu noqonayo waxaan ugu noqonayaa waxay tahay importance-ga qodobkaas uu leeyahay muhiimadda uu leeyahay ha ku hadlayn iskoolka kaliya tutor u qabo ardayga tutor u qabo marka waxa keenaya macallinka inuu helo ama tutorkaas inuu helo ardaygaas xaqiiqdii meesha laga haysto in markaa uu si dhib yar u ogaado markaas uu caawiyo ayaa markaa imaanaysa adiga waalid ahaan qodobka kale wax baro waalid ahaan waa inaad wax barataa haddii aadan fahamsanayn luqadda ma akhrin kadib iskoolka warqadda uu ku soo diray waa inaad marka community center la aaday noqonayso aad tiraahdo maxaa la yiri luqadda iga hada
لأن ilmahaaga haddaad tiraahdo warqad loo soo diray adoo waalid kugu socotaa tiraahdo macalinka muxuu soo yiri ama iskoolkaaga muxuu soo yiri adiga muxuu ka yiri maba sheegayo wixii laga yiri waa fiican yahay ardaygu waa fiican yahay buu leeyahay maybe marka other way round inay tahayna oo saas tahay weeye marka waxay keenaysaa waalidkii asagoo og ardaygu inuu taa samaynayo community center uu leeyahay yiraahdo ii sheeg maxaa laga rabaa marka waa ceeb weeye waalid wadankan 10 sano joogay 15 sano joogay inuu maaragta xataa relationka iskoolka uu la sameyn way relationship ama maaragta ardayga ama iskoolka wax uu ka rabo marka iskoolka ardayga iskoolka laba waxa jira parent school and family agreement baa jira agreement baa saxiixda agreementigaas marka ma fahamsanid saxiixis waxa saxiixday laakiin ma fahamsanid marka waalidka hadduu wax barto dabcan ardaygiisa ama ilmihiisa wuu caawin karaa oo si dhab ah ayuu marka wuxuu caawin karaa midda kale oo markaa jirta waxay tahay waxaa jira dhib caam ah oo markaa keentay ardayga inuu under achievement wax la yiraahdo la yimaado oo ay ka mid tahay in ardaygu gabigiisaba abuuristii ilaahay abuuray uu si gaabis ah uu yahay xagga waxbarashada ama slow learning wax la yiraahdo inuu leeyahay oo u baahan yahay markaas special education needs taa marka waa inaad ogaato oo hay'adan oo taa qaabilsan baa jirta oo iskool walba waa leeyahay ardayga waxa laga yaabaa inaad la dadaasho laakiin isla markiiba inuusan waxba fahmin waxa dhici kara marka special needs inuu marka ardaygu yahay taa marka waalidku inuu ku baraagsanaado si gooniya oo ardayda noocaas kale loo caawiyaa jira qof kasta ma caawin karo taa waa loo baahan marka in saa loogu baraagsanaado saa loo ogaado waxa kale oo jira dhib kala jira oo cunto xumi iyo hurdo la'aan ardaygu markaas la soo gudboonaato hadduu ardaygu cunto xun yahay oo si fiican wax cunin ama uusan seexan subaxii iskoolka markuu tago muxuu la kulmayaa galaas ku dhex hurdoonayaa energy malaha uu wax ku dhageysto ilaa aan arday wax cunay ma aha no energy lama socdo consideration ma siinayo waxa galaaska ka dhex socda imma inuu ku dhex seexdo oo marka meeshiiba arday way dhacday si caadi arday ku dhex seexataa jira ama inuu lazy maarta caajis hayo oo maarta energy uu wax ku dhageysto ma uusan jirin ardayga xanuunsan yahay ardaygan wax xanuunsan yahay ay marka macallimiinta ay waalidkii la soo xiriiraan ardaygan maxaa si ka ay marka yiraahdaan waxa kale oo jira isdhexgal la'aan caruurta kale uu marka ardayga uusan dhex gelin oo maarta ay keento markaasi asaga iyo ardada kale inuusan dhexgal fiican aysan markaa jirin taana waxa imaanaya markaas wax la yiraahdo group working markii si groups iskuulka waa aragtay marka activities ama tasks la sameeyo ardada groups ba loo kala sameeyaa ardaygaasi marka hadduusan enough social maarta communication ama interaction uusan la lahayn waxay keenaysaa marka in uu sidii la rabay wax u qaban waayo okay family ahaan marka waxa loo baahan yahay waalid ahaan inaad samayso wax la yiraahdo family routine joogto ah oo aad reerka aad u dejiso qoyska u dejiso oo loo baahan yahay in routine-ka aan laga bixin circle-ka in lagu dhex jiro maxaa ka mid ah routine-kaas marka waxa la ogaaday dadka routine-kaas leh inay ka fiican yihiin ardadoodu dadka aan routine-ka lahayn system-ba ma leh gurigan system wax loo barta ma laha ardaygu iskoolku tagaa buugta soo qaado guriga yimaada waxba xariiqa laakiin system qaybinayo time table iyo jadwal ma leh routine-kaas marka ardayga target buu leeyahay target baa u dejisay weegaan inta akhri weega kale inta akhri uusan dhaafi karin routine-ka marka waxa ka hoos imaanaya ardaygu inuu homework ka shaqeeyo hadduusan homework ka shaqeyn ciyaar ma laha no game no TV no playing with friends before you finish your homework taas waxa ka mid noqota marka routine-ka waxbarashada oo marka qoysku u degan yahay waxa kaloo loo baahan yahay maintain parent teacher relationship marka goormaa kugu dambeysay macallinkaaga ama ardayga ama macallinka ardaygaaga oo aad la kulanto face to face ka waalid ahaan goormaa kugu dambeysay taa haddaysan dhicin oo marka aad close relation aad la lahayn xaaladdaani waa waxay ku sugan tahay ma taqaanid ardaygaasi xaalkiisu wuxuu yahay nobody knows ilaahay unbaa og
ha sugin marka warqad kuu soo dhacdo iskoolka kuu soo diro oo yidhaahdo inaan kaala hadalnaan rabnaa ardaygaaga progresskiisa ilmahaaga progresskiisa taa ha sugin adigu si waalid ahaana si active ah arrintaa u raadi ka qayb qaado waxaan la yidhaahdo ka qayb qaado ama parenting committee waxa la yidhahdo oo iskoolada ka jira iskool walba uu leeyahay guddi waalid buu leeyahay taas si active ah uga qayb qaado marka waxaa suuroobaysa inaad og tahay ardaygaaga sida progresskiisu yahay ama meesha uu marahayo waxaad jirta waxa la yidhaahdo consultation evening ama sanad dugsiyeedka mar ama laba jeer ba waxaa dhacda maaragta parent evening waxa la yidhahdo tag taas oo chance u helisid macallimiinta oo dhan inaad markaa la kulantid kii science-ka kii Englishka kii maaragta xisaabta kii maadooyinka kale markaasi waad weydiinaysaa ardaygu muxuu ku fiican yahay grade-kii maxay tahay xageed jooga muxuu hiigsanayaa hadduu saan helo muxuu u helayaa hadduu saan waayo maxaa ku dhacaya waa inaad ma ogtahay sidaa ugu qayb gasho waxaa jira xataa mid private ah oo si toos ah oo kaa weyn ha sugin xitaa waxaa laga yaabaa sanadkii mar inuu yahay ama laba yahay ha la sugintaa waxaad samayn kadhaa macallinka inaad maaragtaa si toos ah loo xiriiri kartid adoo email u dirahaya ama telefoon markaas kula xiriirahaya oo dhahaya si gooniya waxaan rabaa macallin inaan kugu arko ardaygayga aan kaala hadlo siduu progresskiisu yahay homework ama arday kasta wuxuu leeyahay balaana wax la yidhahdo buugga homework lagu soo qoro waa qaab kale oo sahlan oo macallinka iyo waalidku ay ku xiriiri karaan laana buugga waxaa ku qoran homework ardayga loo soo diray iskoolka maalmaha fasaxa uu yahay waxa laga rabo homework uusan ka soo shaqayn hadduu dictation leeyahay waa lagu qoraya buuggaasi waalidka si active ah waa inuu uga warqabo weliba waxaa jira meesha buuggaas page walba meel uu waalidku saxiixuu leeyahay oo comments ama wixii faallaa ama wixii maaragta uu rabo inuu yidhaahdo uu ku qoro uu leeyahay maxaa dhacay macallin wiigan ama labadan wiig ma arkin ardayga oo wax ka shaqaynayo homework waan loo soo dirin see waxu jiraan macallinku waa arkaya relationkaas waa inuu markaa jiro qaabkaas markaa haddii intaa la sameeyo waxaa imaanaya in wax badan markaa wax laga qabto school calendarka ayaa asna ka mid ah waxyaabaha kale oo markaasi ay tahay oo ay muujinayso calendar schoolka examskii iyo reboodyadii iyo consultationkii intaasoo dhan baa ku jira iyadana waa qaab kale oo markaasi lagula xiriiri karo ardayga horumarka uu samaynayo iyo qaabka uu markaasi meesha uu higsanayo intaasoo dhan haddii marka la sameeyo waxaa imaanaysa markaas sidii la rabay in markaa wax loo qabto ayaa markaa imaanaya haddii gabagabada marka warbixinta iilin gabagabadeeda okay waxaan niri ay yiraahdeen reportku oranayaa 3,000 oo arday oo Soomaaliya iilin dhigata iyaga ayaana ugu hooseeya all stages from stage key stage 1 ilaa GCSE key stage 4 ardada Soomaalida dhexdooda wiilasha iyo gabdhaha wanaagsan xag waxbarashada waa qodob numberka ardada Soomaalida oo iilin kor buu u sii kacaya attendance-ga ama iskoolka ma xuma oo way tagaan 93% si wadashada waxbarashada after GCSE-ga ma xuma walow meel dhexe markay marayaan ay markaa ka tagaan laakiin stage-ka hore oo year 12 iyo inay sii socdaan ma xuma numberkoodu tiro badan oo ardada Soomaalida ah ayaa markaas waxay soo galayaan waxa la yiraahdo school action and school action plus waxa la dhaho ama educational needs marka ardayga si gooni in wax loo caawiyo arday badan oo number Soomaali ah oo ardada Soomaaliya ayaa soo galaysa markaa taa haddaan halkaan kaga taro gabagabadii baan joognaa wax yar baan marka waxaan ku darahayaa early childhood foundation stage ama early childhood education oo aan filayo in 3 daqiiqo ka badan aan rabin ama maximum 5 daqiiqo wadaadka kale ay fadhiyaan muxaadaro jeedin lahaa inaan san iga qaadan sida aan ognahay foundation stage-ka waa waxay yiraahdaan
hay-addan Sure Star la yiraahdo oo ah hay-ad dhallaanka iyo waalidka ah ama hooyada hay-addaasi marka carruurta way qabtaan markay 8 bilood jiraan ilaa 5 sano ayay xanaanayaan 8 bilood 8 months it's not 8 years from 8 months ilaa 5 years bay xanaanayaan hay-addaas waa free oo lacag ma aha oo haddaada shaqayn waa free dowladda kaa bixinaysa dowladdii laybarka ayaana aasaastay marka sida badan Soomaalidu ma tagno hay-addaas laana waxaan idhahnaa ilmahan hal sano markuu jiro haddaan gaal gacanta u geliyo caqiidadiisii oo halkaa ka qaloocanaysa oo markaasi maxay barahayaan markuu hal sano jir 2 jir 3 jir maxay barahayaan waxay barbarahayaan laakiin waxa ay barahayaan waxay hoos gelinayaan diin bay hoos gelinayaan taa haddaad markaa diidan tahay waxaa raadisaa kuwa islaamig ah oo markaa ardayga caawin kara waxaad ka fogaataa oo aad ka taxadartaa ardayga yeer hal sano markuu jiro ilaa 5 sano uu ka gaaro inaad guriga ku haysato oo aad meelna geyn taa macnaha taas ka ilaali laana from year 1 to year 5 ardayga wax badan buu qaban karaa wax badan buu baran karaa waana foundation stage-ka waxa la yiraahdo waa very important age-kaas ardayga markuu yahay in la dhiso marka مثلا professor ama nin macallin ah oo maarta da'daas ku takhasusay oo BJ la yiraahdo Swiss ah ayaa wuxuu sameeyay 4 qaybood buu u sameeyay wuxuu yiri carruurtu 4 qaybood bay martaa markay korayaan qaybta koobaad wuxuu yiri waqtigaana waxay u baahan yihiin wacyigelin badan bay u baahan yihiin oo waqtiga loo baahan yahay in la dhiso from year 1 year old ilaa 5 years old waa meesha u baahan yahay in la dhiso waxyaabaha la bari karo waxaa ka mid ah year 2 markuu 2 years old yahay ama 3 years old markuu yahay sida wax loo cuno sida loo hadlo sida dharka loo gashado sida dharka la iskaga bixiyo waxyaabaha yararka oo uu qabsan karo inuu asagoo qabsado ayaa la baraa inuu cayaaro waa loo baahan yahay oo ordo oo balay ka qayb galo taa ha u diidin Soomaalidu sida badan waa diidnaa laana murqaha ama koritaanka jirkiisa ayaa markaas si dhaqso ah u korayo xoog buu yeelanaya markaa ardaygu ilmaha yarka wuxuu yiri markaa bar sida bulshada loo dhaxgalo waqtigaas ayada ku bilow kalsooni uu helayaa waxaad bartaa sida carruurta kale oo da'diisa markaasi uu la cayaaro waxaad bartaa wax wadaaga wax la yiraahdo inuu wax carruurta da'diisaas inuu wax la sheer gareeyo hadduu banooni yahay hadday waxyaabaha carruurta ku cayaaraan ay tahay haddii مثلا xataa ama wax la cunayo Christmas iyo la mid tahay in uu wax la wadaago 2 jir 3 jir 4 jir bar sababta ay taa loogu celinayo waxay tahay ilmaha markuu da'da jiro waa self centered way wax walba asaga ku dhaga cid wax uu ogol yahay ma jiro taa bar marka ka dhaadhici waxaana wax maaragta dadka ka dhaxeeyay inay yihiin qodobka asaga bar buu ku yiri waana waqtiga ay carruurtu da'daas markuu jiraan hal abuurid badan bay leeyihiin bar hal abuuridda meeshu ku fiican yahay ku saaci ha ka celin hadduu maaragta activity gooni oo development ku samaynayo taa ku caawi laana wuxuu samaynayaa self confidence iyo taa ka helaya carruurta afar stage buu qaybiyay oo wuxuu yiri stage 0 markuu dhasho ilaa 2 jir waxay soo bandhigaan buu yiri hadaaq iyo hadal iyo maaragta inuu markaas luqadda ku hadlo iyo gurguurasho iyo socod waana xaaladda ay markaas yiraahdeen shantiisa ama 5 senses shantiisa dareeme shanta dareeme caadiga ayuu adduunka ku saameeyaa meesha ay ka dhahan gaaladu مثلا 2 jir markuu yahay waa meesha aanu ka niraahna abeesa xambaar wax alla wuxuu arko afku gelinaya waa 2 jir dab haday tahay waa Muuse calayhi salaam waa garanaysaan oo kale da'daas wax kasta afku gelinaya sun mas dab wax kasta afku gelinaya ayaga laftirkoodu waa meesha ay ka yiraahdeen shantiisa lixaad gacmaha iyo carabka ayuu adduunka markaas ku saameeyaa waa iswaafaqaysaa muujada ayagu siday u darseen anagu saa u darsanay Soomaaliya waa iskeenaysa 2 jir ilaa 7 jir waa nin wax garanaya waxbuu qabsan karaa wax kasta ma qabsan karo laakiin markuu wax qabanayo ama qaabka uu fakarayo si logic ah uma fakaro overreaction ama inuu overreactor uu sameeyo uu ka badbadiyo ayaa dhici kara ama sidii la rabay
qiyaastuna ka hoos martaa dhici karta 7 jir ilaa 12 jir si buuxda ayay markaa ilmaha wax u qabsan karaa ilmaha 12 markuu jiro si buuxda ayay wax u qabsan karaa 12 iyo waxa ka weyn marka da'daas 7 jirka iyo 12 jirka waxa loo baahan yahay inaad tiraahdo maxay kula tahay anagu ma lihin maxay kula tahay hebelow waxaan soo aragtaa see ra'yigaagu yahay ma lihin war wili yar baa tahay hore u dhaqaaq baan leenahay waxba garan maysid laakiin ra'yi gelinta halkaas gaalada ku bilowdaan ama dadka maarta caruurta koriya ama wax ka qoray kuwan cilmi nafsiga iyo filosofiga iyo ka hadlay halkaa bay ka bilaabataa ardaygaas 7 jirka la yiri maxay kula tahay lagu yiri iyo kan Soomaaliga ah 20 sano meeshuu joogo haddaan waligi 20 u gaaro aan la dhihin maxay kula tahay bari isku meel ma iman karaan 20 jirkan waaba ka xishoonaya dadkan laakiin kan 7 jir baa lagu soo bilaabay inuu dadka wax u sheego maxay kula tahay marka la yiraahdo marka uu fatwoodo saas iyo saas baa anu u arkaa uu yiraahdo 12 jirka wuxuu yiri wax ka maqan ma jiro waa kaamil wax walbana asaga qabsanaya waxa marka cajiib ah 12 jirka ninkan philosopherka buwaagta qoray educationka iyo educational theory wax la yiraahdo badan wax ka qoray oo cilmi nafsiga special caruurta ku takhasusay 12 jirka soo u sifeeyay iyo Soomaalida reer guraaga ahayd 100 sano ka hor sida u sifeeyeen waa isku mid wax farqi u dhaxeeya ma jiraan oo taa waxay keenaysaa Soomaalidu xoolo dhaqatay ama reer guraaga ahayd gabaygii caamka ahaa oo inta badan dadku wada og yahay oo ahaa wiil 12 jira hadduu lali ahaan waayo lali means active marti leyl dhaxaad timid hadduu luun ka rogi waayo raganimo ludeed kuma jirtee leecaya ogaada 12 jir wiil ah oo baadiye jooga way waa nin reer baadiye ah gabayga tiriyay ninkan oo qarniga 12aad wax qorayo sayniskan iyo internetkan iyo adduunkan iyo horumarkan 12 jirkii ka Soomaaliga sidoo u sifeeyay buu u sifeeyay 12 jirka marka Soomaaliga maxaa hadda maanta muxuu taraa maxaan ku qabsanaa 12 jirka waqtiga jiray marti guuranaysa baadiyaha waa garanaysa dadkan reer baadiyaha waa iska guurayaan safar bay galaan intaas oo hameen baa laga yaabaa inuu socday faq dhaxab marka reer ku soo hoyday wiilka 12 jira marka intaan aabihi isxil qaadin hadduu san asoo isxil qaadin oo marka intuu kaco martidaas soori waayo raganimo kuma jirto wiilkaas waa dhintay waa finish afartan markuu gaaro waxba ka sugi laana stage-kii koobaad ee 12 ayuu ku dhacay marka hadda ma soortaan haddaan hadda guryihiin aan nimaano xataa biyo qabo uma keentaan baan filayaa ma garataan nimankeena dhalinyarada laakiin waxa loo baahan yahay 12 jirkaas inaad ku dayataan 12 jir baadiye joogo ah idinka 12 jir magaalo joogaatay marka halka baan kaga baxayaa hal qodob yar oo baraarujina oo eelin ah xaqiiqdii numberkaas waxbarashada Soomaalida oo eelin ah waa wax laga naxweey waa shock way runtii qoomiyada ugu badan ardayda ugu badan waa eelin dadka ugu hooseeya waxbarashadana waa Soomaalida taa waxa ka sii daran eelin waxa ka jira 21 urur waxbarasho oo Soomaali ah oo mid walba sheeganaya inuu waxbarashada caruurta ka caawiyo ama ka caawinayo hay'adaha dadka caawiya wasaaradda waxbarashada dawladdu ay og tahay internetkana lagu daabacay under achievement-ga ardada Soomaalida 21 ururna ay sheeganayaan inay dadka caawiyaan waxbarashada ka caawiyaan taasaa geeri labaad ah xaqiiqdii marka kuwii magaalada joogay oo Yurub joogay ama Holland ama halkan ama Denmark achievement-goodii hadduu sidaa yahay oo qowmiyadaha oo dhan ugu hooseeyaan Soomaaliya kii joogana xabad iyo oon iyo gaajo uu ku dhimanayo oo moogta aan wada ognahay jiilka marka Soomaalida marka maxaa u baxay waa sidee hal nin qoran dheelmay dhanna uma fiyooba balad iyo baadiye midna kuma hayna baadiye waxaan ka wadaa Soomaaliya qofka jira hadda reebadii aan leenahay halka markaan joogno anagu kaana xabad baa ku socota oon iyo xabad iyo haraad baa dilay kii magaalada jooga Janiska haystana waa marka anigu inta baan ku gabagabeynayaa raalin aan laga ahado ma ahayn khabiir waxbarasho laakiin statistics yar oo soo helay baan sameeyay waxaan rajaynayaa insha Allah qodobada iyo kuwa lamid ah oo ardayga maxaa looga baahan yahay after year 12
سيدابو جامعة هلا شروطها جامعة محييين إن شاء الله lagu soo bandhigi doono haddii ilaahay ku yimaado qaybo dambe oo aan hadda aan la iclaamin wali insha Allah la keeni doonana dadka markaas ehelka dhabta u ah anigu ma ahi insha Allah salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أخونا آذن عبد الله إلهي سبحانه وتعالى وحان أقبرينا وربحنت أسقالك أهرنتي وآدي مهمك وهيد أنه وليبا وقتك سكسو يريني إن إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك إنه أقدره أنه إلهي نقدر سبحانه وتعالى كوي لقيسي كنا عمل فل إن شاء الله هدي آد أباهتان إن شاء الله إن سؤال أما آد وحكا قبتان إن مركز كالدسو حريري دونتان تليفون كيسي وادنسين دونا إن شاء الله كدبنا ما أركتي سلاس آيات إن شاء الله إن شاء الله وربحن تاسو دن ويب سايت كي كجيران إيميل كي كجيران دمان أساق آيات إذن كدر سين دون إن شاء الله